sanado badan ma jirin xal gudaha Soomaaliya loogu heli karo carruurta xanuunada wadnaha qaba. Waxay ahayd xaalad adag oo ay qoysas badani kala dooran jireen inay xanuunka indhaha ka daawadaan ama ay silac badan u maraan raadinta daweyn aanay awoodin oo loo aado wadamada dibadda. waxaan imaan awoodin meel kasta waa u garaac gabadhii runtii waxay ahayd arrin igu taagan oo fallaar wadnaha iga taagan ahayd. Qaliimada wadnaha ee furan kama jirin Soomaaliya. Qofka u baahanna waxaa khasab ku ahaa in loo qaado dalal kale. Tani waxay sababtay rajo xumo, daal iyo quus badan. Laakiin khubaro Soomaaliyeed oo dareen la leh dadkooda ayaa u istaagay inay xal keenaan. Markii ugu horeysay isbitaalka Kalkaal, gaar ahaan qaybta 4 darjiin, ayaa hirgeliyay qaliimada wadnaha furan ee carruurta iyo dadka waaweyn. Tani waxay ahayd guul taariikhi ah oo u soo hoyatay Soomaaliya, taasoo yaraysay culayska qoysaska Soomaaliyeed. markii hargab ku dhaco ma adkaysan karo markuu ordo xiiqaya Sakariya Cabdiqaadir Maxamuud xanuunkan wadnaha waxaan ku aragnay 5 sano ka hor. waxaan tagnay isbitaallo badan waxay noo sheegeen inay qalliin tahay. saa daraadeed waddankana wax laguma qalo. waxaan is leenahay oo markii ugu horeysay waddanka lagu qalo surgery oo wadnaha ah iyo isbitaalkii ugu horeeyay oo Kalkaal 4 darjiin ah. waxaan imaan awoodin meel kasta waa u garaac gabadhii runtii waxay ahayd arrin igu taagan oo fallaar wadnaha iga taagan ahayd. ayadoo tabar yar ay dhalatay bacdeen markii anaga waxa isbitaal maana geeyay waska habeenkii dhalatay habeenkii xogaa waa matag la soo booday caadi aan aragna way iska joogtay way joogtay isla markii xogaa adiga sanado ka bacdi gabadhii hadii wax yar deficiency ama difaaceedii ay hoos u dhacay markasta hergeba ku dhacay markasta naqaska ku xirmaayo markasta cunto ma qaadan karto markasta ma ahaato meel oo cub ah iyo meel xogaa hawadeeda ay xiran tahay ma aysan jiifi karto barkin la'aan ma seexan karto. waaga yar waxa lagu xir jiray baalka oxygen lagu xir jiray oo wax badan baa istaal la wareegi jiray oo asaas u la rafaad jiray. Sakariya Cabdiqaadir iyo Maayida Muumin waxay noqdeen bukaanadii ugu horeeyay ee qaliinka wadnaha furan loogu sameeyo gudaha dalka 25 bisha koowaad 2025. qoysaskooda waxay la kulmeen walaac iyo cabsi, balse waxay kalsooni ku qabeen dhaqaatiirta. qaliinkooduna wuxuu qaatay 2 saacadood iyo waxay lagu guuleystay oo wadnaha ah oo ah nooc ugu horeeyay waddanka laga fuliyo. maanta waxaa farxad weyn inoo ah maalintii markii aan sameynay oo aan dah furnay qaliimadii ugu horeeyay ee waddanka laga hirgeliyay ee carruurta ah. maantana sida u jeedaan waxaa hareerahayga taagan Zakariya oo bukaankii koowaad ee ugu horeeyay ah lagu sameeyay qaliinka furan ee waddanka gudihiisa iyo gabadheen yareed ee Maayida ah. alxamdulillah shirbi caalamiin waxa waaye howsheedii qaliimadoodii wax walba nadiif ay noogu dhamaadeen, wax complication iyo wax dhibaatana ma lahayn alxamdulillah. maantana u jeedaanne waxa waaye waa fasaxina guryahoodii ay ku noqonayaan. waa taariikh cusub oo u dhalatay Soomaaliya inay ka faa'iideystaan fursadan si ay badbaado ugu helaan dadka u baahan qaliinka wadnaha. waxaan rabaa dadka oo ummadda Soomaaliyeed inaan fariin u diro oo